horta dadkan anagu aan xukunno oo xukunka mara oo maxkamaduhu argixisada ku xukumaan waxaa la marsiiyaa baarid aad u xeel dheer mudday xiraayeen baaris aan ku qanacsannahay weye sideedaban xukunku wuxuu macno yeeshaa marka baarista hubinteedu ay hagaagto dad hore waad ogeydeen la xukumo 18 ahaa oo 27 bishii hore la qisaasay haddana 8 baa shala la xukumay 8 la xukumay waxaa xukumay maxkamadda darajada koobaad waxayna soo mareen baaris ku filan marka annaga kalsooni badan baan ku qabnaa hay'adaha baarista iyo booliiska iyo CID-da intaba kalsooni baan ku qabnaa marka sida aad sheegteen haddii baaris la soo mariyey oo maxkamadda goobtii yimaadeen oo la xukumayo qareena ma u qabateen iyaga udooda dabcan qareena waa loo qabtaa racfaankoodana waa la aqbalaa marka labaadna qareen kalaaba loo qabtaa wax oo procedure-ka ay lahaan jireen garsoorka oo dhan bay maraa wararka qaar waxay sheegayaan in badana caddaynta ugu weyne la adeegsada ay tahay qiraal ama inay qirtaan taa lafteeda dad baa qabaa in handadaad iyo jirdil ay ku timaado marka qof sidaa lagu sameeyey sidee loo qaadan karaa waxa uu sheego waa propagandooyinka argagixisadu ay dadka dhex marsadaan in la suuro xumeeyo hay'adaha baaritaankooda in la suuro xumeeyo maxkamadahana la suuro xumeeyo qofka annaga qof aanan xog lagu soo qabanba hay'adaha ammaanku maba qabtaanba qof la iska qabsado inta dariiqa laga qabsado ilaa shabaab baad u egtay annaga ma jiro waxaa la qabtaa qof xog lagu qabtay la og yahay inuu yahay shabaab oo la hayo xogtiisii oo markhaati loo hayo oo la hor fariisiyo qofku shaqada la hayay oo maaragtay qiraalkiisi uu ku yimaado si aan handadaad iyo dhibaatayn midna ahayn marka waxaas oo dhan waxa weeye dee nimankii dadkay ku dhex jiraan maogta argixisada marka iyagaa fariimaha dadka dhex mariya marka aad leedahay la hor fadhiisiyo dadka ay hawsha ku wada jireen badanaa sida aanu ku aragnay muuqaalada ay soo duubaan ama laga soo duubo dadka loo qabqabta falalkaas waxay sheegaan magacyo kale oo ay dhahaan way nugula jireen markaa sidee loo rumaysan karaa qof dulsugaa inuu qof kale galaafan karayeen kale sidee ku caddaysaan dadka ay sheegaan magacyadooda waa su-aal fiican way jirtaa qofka la xiro wuxuu isku dayaa horta inuu dad xataa la qabiila soo xiro siduu maaragtay dadka u kaco oo la yidhahda reer hebel waxaa ka xiran 4 qof 5 qof baa ka xiran maaragtay qabiil la kiciyo oo ay qof ku been abuurtaan oo waxaasoo dhan waa ka digtoonahay hay'adaha baaristu waa hay-ado runtii aad iyo aad looga taxadiray oo garanaya daalimka iyo qofka aan daalimka ahayn marka waxyaalaha noocad bay kamid tahay ama khaladaadka iyagoo ay isku dayaan inay sameeyaan bay kamid tahay inay dad aan dembi lahayn ay xataa sheegtaan inay dembiga la galeen laakiin waa la kala saaraa dadka aad xukuntaan dadkii ay laayeen ee aad ku soo oogeysaan dembigoodu ehelkii dadkaas ay ka dhinteen ma yimaadaan maxkamadda oo qayb ma ka noqdaan dembiga lagu oogayo oo dhinacooda ma kaga soo oogaan mise keliya idinka iyo dacwadoogihiinuunbaa hawsha isku dubarrito oo sidaa ku fuliya maya dacwadan annaga oognaa dadweynuhu dee dadkooda la dilay hadday iyagu dacwad oogan karaan hore u qabsan lahayen dacwadda ugu oogan lahaayeen u raadsan lahaayeen annagu dariiq dawligaan marraa waxaan la diriraan waa argagixiso dadweynuhuna hadday maxkamadaynta kasoo qaybgalayaan waa u sheegnaa eheliyadoodina waa u sheegnaa kuwan argagixisada ah dhanna eheliyadu ma ahna dadkii waaga hore ay intay argagixisada ahayn ehelka la ahaayeen waa u sheegnaa